xaajo war ku aado war ma looma doonto. bulshooyinka ku guulaysta wada xaajoodka miro dhalka ah ayaa waxay halqabsi ka dhigtaan haddaadan indhaha iska arki karina bal uun danta guud isu garab socda. runtii aadanaha afkaartoodii iyo aragtidoodii waa kala duwanaan karaa, taasna waxay ka mid tahay sunnooyinka ilaahay. waxaa kaliya loo baahan yahay garnaqsi degan iyo maskax waxgarata oo u furan fikradaha dhinaca kale ee walaalkii. waxaa la diidayaa oo aan fiicnayn yooyootanka iyo hadallada midimidi kutaaga ah ee bulshada kala sii fogeynayso. marka aad fiiriso awowayaasha Soomaaliyeed ahmiyadda ay siin jireen wada xaajoodka iyo tayada ergada ka qaybgalaysa waxaa marag u ah mahmaadii oranaysay ergo waxaa loo dirsadaa nin dhurwaacay oo adag, kudkuda gaajo uga adag, kurtun qorax uga adag, dhagax qabow uga adag. khubarada wada xaajoodka ku takhasus ayaa waxay leeyihiin marka xaajo la rogrogayo inta u fiirin lahayd 5 lagu daray 5 waxay la mid tahay 10. waxaa fiican in loo fiiriyo xa lagu daray xa waxay la mid tahay 10. tan dambe ayaa waxay ku suuro gelinaysaa in xaajada si fiican loo rogrogo oo loo gorfeeyo. runtii walaalayaal, maanta magaca Soomaaliya ayaa khatar ku jira, taasoo u baahan in si kala jir ah iyo wada jirba loo badbaadiyo magacaas. waxaa naga waana ah inaan qalbigeena qaramayno oo aan dhulka federaaleyno. ceeb ma ahan in qof walba dhari gooni ah uu saarto oo deegaankiisa daryeelo, laakiin waxaa ceeb ah in la dayaco dharigii weynaa ee qaranka ee ka wada dhexeeyay ummadda Soomaaliyeed. qalbigiina qarameeya, qalbiga isku fura. qalbiga waa meesha kaliya ee gumaystaha aan xuduudo u samayn karin. waa walaalkiin Baazi Busuri iyo barnaamijkii Horumaro Ummadaada oo aad nooga barateen maalinta Isniinta iyo Khamiista. jazaakumullahu khayran.